abaartu waxay saameyn taban ku yeelatay waxbarashada tirada dugsiyada xidhan ayaa sida daraasadda la sameeyay ay tibaaxayso waxay kor u dhaafaysaa 1867 dugsi kuwaas oo isugu jira kuwo qayb ahaan furan iyo kuwo gabi ahaanba xidhmay ardayda banjooga ka noqotay waxbarashada ayaa dhan 382 oo arday haddaba xafiiska waxbarashada ayaa isagoo kaashanaya bahwadaagta dhinaca horumarka wuxuu bilaabay quudinta ardayda dugsiyada 9 degmo oo ka dhigan 43406 arday oo 7 dugsi dhigata si loo yareeyo saameynta abaaraha ee dugsiyada waxay xukuumaddu dadaal dheer ugu jirtaa sidii loo kordhin lahaa barnaamijka quudinta ardayda iyadoo xiriir la sameeyay deeq bixiyaal kala duwan oo ay ka mid yihiin hay'adda USAID ee gargaarka ee Mareykanka oo iyadu inta badan taageerta barnaamijyada school feeding ama cuntooyinka school